لأن علماء كمذا عالم مالين مثلا قصة عجيب ونوشك يوحيري عبد القادر جيلاني الله أقول حارسته شيخ عالم الرباني يبوها أنت رنوا كأقام سقوير أقوم بوها هو يدي بكرستي لأن مركب العق في عنتي جيبته وردي سفر مقالة السعودة بيقدرتي كتري أرض مقالة قالوا مساجد قال علم الحلقات كعلماء علم كبريسا أرض علم كعلماء كالصبر سفر كالرعب كتري سفر كي والله السعودي أيا نمن موريانا أيا نحذا أقلي بالليل وهبين مدو قرعدا dadkii markay arkeen tuugtii inay gacanta ugu dhaceen qof walba wuxuu haystay buu markaa qarsanaya yarkii yara ninkii u horeeyay tuugay qabtay baa weydiiyo ku yiri wariya wiilka yaro adigu maxaad wadataa waxa li wuxuu lacag watay buu banaanka soo dhigu sheegay baa leeyahay markaasuu yaabay lacag inta lag baad wadataa ha aaway waa batan uu ka qaaday wuxuu ka naxay markaa wuxuu maxaad ka dhigaysaa lacagtan hooyaday baa ay soo siiso magaalada u socdaa waxaan u socdaa طالب العلم baanahay علمك أين صوبرت أيان دونيا لعقتنا مركا ومصاريفتنا عنيي ويا أنت أوصلنا مركا بقول هذا محادث كشكتي بقول محاد وشكتي ما قرصت دابو كوي ردوا قوة قرصنا يه وعره هو يدي بقى يقول تري واللي قاعد بين هالشيء حداد بين لو النقطة إلى هنا وكنا عبنا هذا وكنا عيان عجيب قعنت أنتو قبتي أيو أبجي بالليل نكيد الناي توك سري بل المها يروح إليه هديك لعقت أنت لك نوتاي ومحيري لعقت أنت لك بوتا أو شاقين محادو الشاق تبع كنري وحيري هو يقول تري بين هالشاقين حداد بين لنقطة دتكنا ويكون عيان إلى هنا وكن نعي وأنا رن بين لها إلى هيبا نعب بين لها دتكنا ما نعب اسكدا مسلمين بين لها قال ذا نعب لكي توقت أقوينا أو يبا لرسل المير بو بارورتي markaas lagu soo ururinay maxaa loo oyday wuxuu hooyaday haday asaga hooyadii oo kala lamid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu ee aniga tarbiyadii hore iga xumaatay waxa halka aan ka fahmay yarka hooyadii waa murabbiyad ilmaha yar hadalkii hooyadii buu fuliyay wuxuu haysto dhabo banaanka inoo keenay inaguna amarka ilaahay intoo jabinay oo tuug noqono umada aan dhacayno ayaan halka u fadhinaaye waxa iga ballana maanta laga bilaabo ciidan badhici maayo yarka lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya aniguna masaydkan gale waan toobadkeena salaamo buu halkii kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyada hooyadu waxbay badishay ogow hooyoy haddaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeena weeyaan hadday noo hagaagaan ubadku waxay ka dhigan tahay dalka inoo hagaagay hadday dumarku inaga baanaadaan oo haweenku ay baanaadaan waxay ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday dadna ilmuhuna uu xumaani ilmuhu hadduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabeeyo ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadayda muslimada waxaan naftaydan ugu nasteexayn inakana inagu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqonno dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas'uuliyad baa saaran haweenkana mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa bannaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa waa aqalka fadhiga maxaa loo fadhinayaa xigmadda dumarku aqalka u fadhinayaan waa tarbiyadda awlaadda ugu horreysay ogow oo cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray awlaadda tarbiyaddooda markuu ka hadlaayo 7 sano u horreysa ilmaha wuxuu odhan jiray la ciyaara 7 ku xigtana buu odhan jiray tarbiyadeeyo waxbaro edbiya 7 ku xigtana buu odhan jiray ilmihiinna la saaxiiba 21 jir ilmuhu markuu gaadhana xadhigiisa qoorta u suro magaalada geli buu haddii tola magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyadda hoose uu soo maray ilmuhu 7 hore waa lala ciyaaraa sidee loola ciyaarayaa waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha lala fadhiisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo
أتابه وادو جدايا أبدك أبوه علاقة مله وعلى جاي أبو عليسك أنت أبدا ما أنت أقلد هو يدا يكون داعي تربيته هو يدنا مد بولا يسوع مد ما يستر ما يسوع إلى هاي الله بدو في السجاس كده اللي تري هو يد الصفات أبدا إلى هاي وأنا حريص ويا أباهنا الشدة يا الله ويقنا أديك لبدا مركا واللي سكود اللي تري وأبي بكر يا عمر أو كلويا أبو بكر إن حريص بدل بوها وجلعسن عمر بن الخطاب إن أدق بوها ووحك لكم أتكيني إلى شرعي سوكو أتكايو قفك هوري ما عمر بن الخطاب بعيد سوما شكا كريم والله بدا صفة مركا لو باهيه صفة هو يدنا ولو باهيه إن حريصتا صفة أباهنا ولو باهيه وعيالك أنت أبدا أقومها أفرسدا تربيته دنع بأبدتا دنع هذا هو يكدي مثلا دنع بأبدتا هذا أبا كد إنتنا هو يكو أكهرانا تربيته دنع بأبدتا لذلك الله بدو قفواس كل اللي ترينه أبوهنا وينو عيال قص وقت وكبحيا وكل تربية أخلاق وناكسن ينقك وناكسن والنبي عليه الصلاة والسلام وحوي مجري نبي فاطمة ويمجري فاطمة أو ابو نبي كويل حسن يا حسين مرقا بيت أبو واقع أيان نوبري بيت واقع أيان نوبري أنكم ماركتان قود لقوت أقل كايسن أولينو علي با يقا قادو وهنتو دي حقا أولك علي كتلي مرقا ابو نبي علي كدبي من رضي الله عنه وأرضاه وحوارك علي بن أبي طالب ونن يهودية بيها بيرتيس وغشبا وقدامنا وبالدقي بيا وصوص عربا هل تمر لغو سينيا مشقايا مركاسو إن دور انتو شقيي تمرتي وشقيي بو حسن حسين انتو سيي بيهنا انتو ضربي جيتكو هس عياريا على نول عيلكي بو كجرايو نيكا يهودغو بيرتا ودامنيا مركابو النبي صلى الله عليه وسلم انتو يمد النبي ايو حسن حسين بو لا فديستay geedka hoosteedu nabigu kula ciyaaray markaas Ali baa arkay nabigu yimid oo Xasan iyo Xuseen la ciyaaraya dadna markaa uu nabigu ku yiri ya Ali labadeedan wiil cadaad intayna kululaan maadii qaado daqalka igu celisida markaa buu ya Rasuulallah iyakii maanta waxay cunaan way heleen oo waan siiyay Faatuma naqalka kaga imanoo gaajoonayso in yar u shaqeynay ii kaadi buu ka yiri nabigu ma dhihino ma oran labadaadii wiilna waad u shaqayso waad ka soo qaadatay aqalkii inantaydiina gaajo ayaad ku dishay warqadeeda keen ma orane nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu dhisaayay reerahana uu dhisaayay meesha uu ka fikirayna waa aakhiro wayaan adduunyada maaha uu la ciyaaray xasan iyo xuseyn waxauna ka yidhi caliyow labadayda wiil cidaadu intayna ku kululaan maad aqalka igu celisida buu nabigu ku yidhi laana rasuulku xasan iyo xuseyn uu jeclaa maalin maalmaha ka mid a mambarka isagoo taagan oo khudbadaynaya ayaa labadooda oo is-eryanaysa masjidka soo galeen khudbadii intuu ka dhaadhacay buu nabigu halkoogii ugu tagay uu soo xambaaray oo khudbadii buu kula soo noqduu dhammaystiray markaasuu nabigu khudbadii ku soo daruu yidhi labadaa markaan arka ma joogi karo ilaahayow labadaa waan jecelahay kii jeclaadana jeclow kii nacana ilaahoo labadaa nacbuu rasuulku xasan wa xuseyn سيدا شبابا وأنعم أهل الجنة حسن يا حسين شبابك الجنة قلدونا لبدا أغسر ريسي أغبر وقبدا ويام رسولك يدي عليه الصلاة والسلام ولبدود وأهل الجنة فاطمة ويدودا وأهل الجنة أبهود علي وأهل الجنة ويام ريركا وأهل الجنة نولشود سديكو دسنيد مادي ما تريال يلعقو ما يدسنين نولشود الدين يا أخلاق ونكسب يكون دسنيد ومركو النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مركو النبي علي ودسايي ما تقرصت دابو كيد عليو مركابو يا رسول الله ده maxaan ku guursada ma bahaye markaabuu nabigu ku yiri daawadiga haysta ma maaragtaanay dagaalkii badar markii la galay barihi aad gaalada ka soo qaadanay ee lagu siiyay ma taa u iibisada dirac waa bir la gashado weeyaan iyo gaashaankii inta intood iibisid inta ay noqoto maaragtaanay meher ma Faaduma meher uga dhigtida markaabuu waa hagaag nabi Allah waa yahay markaabuu nabigu Faaduma waan ku siiyay orado magaalada galo birta uu iibiyo waxay lacag noqoto noola soo noqo wa fi riwaayatin farq alhadidana hasiiside oo meher bahan uga dhignay bal wuxuu la kaalay buu nabigu ka yiri lacag 4 dirham oo cali leeyimid 4 dirham buu leeyimid guurkii Fatima inagana maanta zamankeena Soomaalidu gabdhaha way iibiyaanba oo madaha bay dhalay hadaa lacag dul dhigto dacal lacag ku iibiso
ma xasan iyo xuseen oo kale dhali baad moodaysaa may guurba guurka uu ka kharash badan yahay uu ka israaf badan yahayna uu ka baraka guurba guurku ka kharash yar yahay ayuu ka baraka badan yahay guurba guurka uu ka macsiyo badan yahayna waa ka bilaa barakay ugu haddaan doonay awlaad barakaysan iyo ummad barakaysan haddaan doonayno dhaqankii islaamka waa inaan nolosheenna sal uga dhignaa sal sees uga dhig nolosha islaamka maaragtaane dhaqankaaga oo dhan markaa bay caaisha nebigu faatima u yimid uu yidhi aabba waa ku dhiso cali baan ku dhisay way aamustay markaa ila gabadha bikirka marka la meherinayo sukuudkeegu waa calaamatu ridaa baa la yidhi markaa buu nebigu yidhi qadiifadana qaata oo ku seexda barkintana qaada oo barkada weelkana qaatoo biyo ku dhaasada buu rasuulku yidhi saasaa lagu dhisay reerkaas reerka xasan iyo xuseyn ay ka soo jeedaan basaadada noloshaa yaree fudud ee bilaa tacabka ee bilaa kharashka ee bilaa buuqa ayaa lagu dhisay deedna waxay dhaleen laba wiil oo ahlaljanna ayay dhaleen faatimana waa ahlaljanno weeyaan calina waa ahlaljanno oo cali 10ka jannada loo bishaareeyey buu ku jiraa faatimana inay ahlaljanno tahay waxaa caddaynaya xadiidkii nebigeennu uu ku yidhi faatima ha oyna aamus ahalkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus qofka iga daba imani doona waa adiga aamus buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marba hadduu yidhi nebi maxamed waad iga daba imanaysaa waa ahlaljanna weeyaan jannay galaysaa faatima radia allaahu canha wiilasheeduna waa ahlaljanno weeyaan zawjkeeguna waa ahlaljanno weeyaan reerkaa diin baa lagu dhisee alla kacabsi baa lagu dhisee macsiyo iyo heeso iyo isdhexyaac iyo laqwi iyo qaflad iyo diin la'aan iyo huteello laguma dhisina si dhib yar oo fudud ayaa reerkaa uu nebi maxamed uu ku dhisay marka tarbiyaddaas ubadkeenna asaasaan uga dhigno diinteenna tarbiyadda islaamka asaasaan uga dhigno oo nidaamkan maanta ay mujtamaceenna inta u badan ay ku nool yihiin ee wiilkana la leeyahay bal gabadh la kaalay inantana la leeyahay bal adiguna nin soo doondoono adigu miduu noola kaalay la leeyahay waa khilaafa shariica shariicadda islaamka arrintaas way ka duwan tahay inantaada adaa la rabaa inaad u hasaawo tagtid aabbahaa la rabaa inantiisa inuu hasaawo tago ceeb ma aha inaad tidhaahdaa inantaada war gabadh baan hayay ma kuu dhisaa ninka diin iyo dabeecad wanaagsan aad ku tuhmayso inaad inantaada u bandhigtaa ceeb maaha oo cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayaa xafsan ninkeedii markuu ka dhintay waxa uu u tegey maaragtaane cusmaan buu u bandhigay cusmaan baa u jawaaboo ku yidhi waan fikiro waan isku noqdo sanadkaa maanta aniga waxaa ii soo baxday inaana guursan baa ii soo bixina iga raalli ahow haddana cumar abubakar buu u sheegay abubakar haa iyo maya midna ma odhan uu ka aamusay markaa muddo yar kadib xabse waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii nebi maxamed uu xabse uu guursaday kadib ayuu maaragtaanay waxaa yimiday cumar binu khadaabi abubakar baa is arkay abubakar baa hadalka qaato oo ku yidhi yaa cumar malaha uurkaad waxay igu haysaa haa waan kuugu hayaa buu ku yidhi waayo adiga hortaa xabse waxaan u bandhigay cusmaanoo uu ii jawaaba jawaab waafiya adigaan kuu sheegtoo kuu bandhigay adiguna iimaad jawaabina waad iga aamustee maxaad igu jawaabi weyday buu yidhi haa iyo maya mid ii odhan weyday taasaan uurka kugu hayaa buu ku yidhi deedna markaasuu ayuu yidhi wallaahi cumarow soo fadhiiso anaa kaa raalli gelin arrinkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ogaa oo xabse hadal haya haddii nebi maxamed uu dhaafi lahaa xabse iska dayn lahaa anaa kaa guursan lahaa waxaan maalintaa kuugu jawaabi waayeyna sirta aniga nebiga naga dhaxaysa inaan sheegaan diidanaa buu ka yidhi qofka khayr aad ku tuhmaysa inantaada inaad la doodoonataa waa diin inaad inantaada tiraahdaa nin lacag leh oo shaqeeyo uun la kaalayna waa diin la'aan weeyaan guurka waa loo meeldayaa ninka wiilkaaga markaad u dhisaysana u meelday adigu sidii ninkii la odhan jiray anas binu cammaar alasmaci aabbihii baa u yeedhay baa layidhi isagoo aan war ka qabin baa lagu yidhi caroos baa tahay caawa caroos baa tahay gabadhiina waa la keenay reerkoogiina way noo oggolaadeen caqdigii unbaa hadhay gabadhii baa lagu meherinayaa isaa u diyaargaroobo soo maydho uu soo diyaargaroobay deedna markaa berigaa dhallinyaradu aabbihii hooyay ku qanacsanaayeen dhallinyarada zamankeennan madaxa ku socota mooyaane madax mahaba
kuwa zamankeenan intooda u badan caqli ay iyaku lahayn bay ku socdaanba kuwani allah inoo soo hadeeyo markaasuu u yimidayoo caqdigii oo gabadhii baa loo meheriyey markaasaa lagu yidhi gabadhii caroosadii waata qolka kugu jirtee orada dee waa caroosadaadii u tago isbarta oo dee salaamo halkaa caawa dee maaragtaan caroos baa tihiine markaabuu u galay baa la yidhi oo mar alli markuu galay isagu waa nin dhallinyaro ah oo laankaa la egoo dheer oo qurux badan oo cad iyaduna waxay noqotay inan gaaban oo kuusan oo isaga aanan cajabin nimanka dhallinyaraduna daa'iman waxay iska jecel yihiin gabadh qurux badan oo loo abuuray sida iyaku ay doonayaan inay helaan bay jecel yihiin mana helayaana ogow daadna markuu galay uu salaamay buu arkay gabadh nuuciyadday tahay markuu arkay buu ka naxo uu ka murugooday meel laga laabtana ma joogo dee gabadhii waa la meheriyey aabbihii hooyaana u dooray oo u keenay markaasay gabadhii intay aragtay isaga quruxdiisii iyo dhararkiisii bay tidhi ha murginoo ha murugoon bay ku tidhi waxaa laga yaabaa waxaad ku faraxdo khayr leh oo baraka leh ilaahay inuu caloosheeda kuu soo dhex mariye hadalkaygiibuu ku qanco wuxuu is yidhi kollay tan waxa lagugu dooray khayr lagu ogyahay weeyaan iska barakayso habeenkiiba uu barakeeyey baa la yidhi ilmihii u horreeyey gabadhaasi ay ku curatay wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday baa la yidhi imaam daar alhijra imaamu ala'imma imaamkeenna shaafici allah u naxariistay macallinkiisii bay gabadhaasi ku curatay gabadh diin baa laga eegee qurux lagama raacin dhaqaale lagama raacin nasabkay ka dhalatayna lagama raacin gabadha waxaa laga soo raacay diinteedaa laga soo raacay diinteeda fadfar bidaata addiini taribad yadaaka waa kii nebigu lahaa gabadha diinta la qaado oo dooro haddaad doonaysa inaad liibaantid buu rabbigu yidhi taabaad ku liibaaniye gacantaada kugu barakoobaysa dada gabadha diinta loogu soo doortay inanka labadiisa waalid baariga u ahaayee labada waalid go'aankoogiiyo taladoodii dhaafi waaye waalidka u hoggaansamay waxay ku curteen imaam maalik binu anas bay ku curteen baa layidhi caalim cilmigiisu ilaa yowma alqiyaama adduunka uu yaallo oo madhab min madaahib alarbaca uu ka mid yahay madhabkiisu uu sheekhna u yahay ayaa maaragtaanay gabadhaasi ay ku curatay dad barakaysan laba awlaadoo barakaysan hadday isku tagaan dhal barakaysan bay dhalayaana ogaada marka nolosheenna diin ha ku salayno oo guryaheenna qur'aanka ha ku akhrisanno oo guryaheen dhexdoodana ubadkeenna sunnada nebiga ha ku tarbiyadayno oo guryaheenna tacliinta ha ka qabanno oo guryaheenna dacwadda han u furno oo raggeenna iyo awlaaddeenna iyo qaraabadeenna wixii raggana waxaad ku tarqiibisaan ood ku dhiirigelisaan war diinta dadaal xil baa inaga saarane ordoo inkuna qaybtiinna diinta dadaalkeega ka soo qaata laana ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka inay diinta isku kaalmaystaan waa aayad qur'aana bal salaadda iyo zakada iyo taacadda ilaah iyo taacadda nebiga waxaa laga hormariyey oo la yidhi waxay isku kaalmaysanayaan gabadha mu'minadda iyo ninka mu'minka inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan oo dadka wanaagga ay faraan oo ummadda xumaha ay ka reebaan oo salaadda oogaan ee zakada la yimaadaan ilaah iyo rasuulka ay adeecaan amra bilmacruuf wannahyi cala almunkar ayaa laga hormariyey salaadda iyo zakada iyo taacadda ilaahay iyo taacaddii nebiga waayo waa seeskii diinta islaamka in diinta laga shaqeeyo saxaabiyaadkuna diintan waa u soo dadaaleene inankuna insha allahu tacaala dadaalkaa diinta guddooma oo maaragtaanay guryihiinna xalaqadda ka qabta oo xalaqaadka haweenku meelahay ku qabsanayaanna ka qaybgala oo madaarista ku xidhnaada oo aqalladeenna qur-aanka ku dhex akhriya oo hooyadu ilmahayga ha tarbiyadayso hadday inan tahayna beritoole hooyo unbay noqon doontaaye ubadkeenna xagga diinta aanula kacno haddaan ubadkeenna xagga diinta aanula kacno waxay ka dhigan tahay ummadda soo socotay ina bedeli doontaa ayaan meel wanaagsan iyo dariiq wanaagsan u soo jeexna bay ka dhigan tahay allahana inagu anfaco dembigeennana allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo kulankeenna allah inaga aqbalo waxa aan ku hadallay ee khayra ilaahayna soo dhex mariyeenna annakana ilaahay ikhlaas ha nooga yeelo oo ha nagu anfaco ininkana allah inagu anfaco muslimiinta meelay joogaanna kurbada allah ka qaado qof wallo bukana bugtaanta caafimaad allah ugu badena ayaa mar kastoo yidhaahdaan haddaad kulan qabataan oo culummada iyo macallimiinta iyo madaarista iyo meelaha dadka ehelkhayrka isku imanayaan aad ku kulantaan noo soo duceeyey bay yidhaahdaane oo bukee ilaahay caza wajalla waxaan u rajaynaynaa ilaahay caafimaad sariica iyakana inuu siiyo innakana waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala magaaladeennan gaarisa
وليد دادك أف صومالك أكو هلا واسكو ده هلون بانه مقالة قريب كم هي واسكو مقالة يديه هو يعني وحرجينا إن شاء الله خير كم مقدر يجب حياة ومجلس كيس دحاد بانو ملين ساكا عن فريسنا صوما وكي أفراد مساجد يلا بإسكول هي مدرسة مارتان معت كان إمام مالك وحالك يجب مقدر واللي قلنا مقالة كم مقدر صحوة إسلامية الدين جعل وددالية قبل حجابا وأسطرا علماء إسحل قاضي ودقاق أرزاقه عودي يا تعلينتي يا مدارستي يا قرآنك أنت ما ماركتاني قيبتو ذكا قادنا إسا أيا ككيني ماركتاني محبدا يكالقعيلدا يصدقتك أسوق القوليا وحا ككيني وددال لي نقول بحيه علماء يدعاء دا إن نقول ددال سينا نحسو عطانا وحا لنا هاي حد لنا ددال كوضا أو كردية إنك أنا وحا نقولتها لنا أو النفط يدي إنك من نقول أننا إن أن كان ماركتاني isbedel baan u baahannahay isbedel oo gabadha mu'minadu inay barato diinul mar'a fil bayt diin baa jirta adiga ku qaasa oo ku gaara oo rag ay kula qabin waa diinul bayt bay culimadu yiraahdaan xijaabka ayaa kamida asturka gabadhu gurigeeda ku asturnaanaysa ayaa kamida aqalka dhexdiisa tacabka iyo ubadka dhibaatada kugu soo gaadhaysa sabirkaad u sabraysid baa kamida Sulaym radiyallahu anha ilmaheedii markuu ka dhintay ee Abu Talhana uu safarka ka soo noqday isagoo ordaya buu soo galay cunugayga ka waran markaa bay ku tiri sidaad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yahay bay ku tiri markaa bay ku tiri dharka iska daago iska dhigo safar baad ka timidee yarna soo casheeyo iska seexo oo habeenkii bay shaqdii dhaxa markay ninkeedina ay raali gelisay ay ku tiri jaarkaasi dariskeena hadii uu jaar kale uu alaab ka soo carriyaysto oo jaarkii alaabta lahaa ay alaabta naga qaalateen noo soo celiya mayna u diidaan ma masawayna u celiyaan markaa bay ku yiri may waa inay u celiyaan deema balahayn marka horeba iyo ku yahay bal usluubta ay ninkeed wax uga dhaadhicinaysa dhageysta walaalayaal markaas ay ku tiri hadaba dhageyso Abu Talha ilmaheenni yara adiguna maan lahayn aniguna maan lahayn Allahi lahaaba iska qaato waa la qaatay oo kaasi adduunyada uu ka intiqaalo uu shafeecay waan adkaystay anigu iyo waan sabray oo waan adkaystay maxay u leedahay hooyaanahay macnuhu weeyaan waan ka beer jilicsanahay aniga ayaa tacabka ugu badan ilmaha iga soo gaaray adiga wax tacabo badan kaama soo gaarin waayo 9 bilood buu ilmuhu calooshiina uu ku dhex jiraa 9 bilood hooyadu waa bayna alxayaati wal mawt nolol iyo geeri bay hooyadu u dhaxaysaa ilmihii yaraa ee dhibta aniga iga soo gaadhay waan u adkaysto waa sabre maydkiisina waa ka halka ku duuduubana ka iga soo asbay ku tiro iska sabir jaamacadee ka soo baxday kula tahay gabadhaas jaamacadii nabi maxamed uu asaasay bay ka soo baxday sallallahu alayhi wasallam sabirka la baray waxa laga dhaadhiciyay ubadkan iyagu inaysan lahayn ilaahay uu leeyahay oo markuu doonan ilaahay uu ku siin karo markuu doono ilaahay uu ka qaadan karo ku doono ilaahay uu aqliga u dhameystiri karo ku doono ilaahay uu waali karo ku doono ilaahay uu lixaadka siin karo ku doono ilaahay lixaadka uu ka qaadi karo ku doono waxtar uu ku soo dhaxmarin karo ku ilaahay isagu doonay bala waxtar uu ka dhigi karo maliyid adigu ilmaha ilaahay baskale qaar baa waxtar ku yeelan kara qaarna aday ku dhibi kara qaar baa ku fiicnaan oo baari ku noqon kara qaarna caaqil waalidayn bay noqonayaan Sulaym radiyallahu anha ninkeedu waxay ku tiri war waan adkaysto waan sabre adiguna caloosha adkayso ilmihii waa kaas ka iga soo asbay ku tiri halkeen laga helayaa haween noocaas maanta oo ragooga sidaa u raali gelinaya mayd aqalkayga ugu dhex duuduuban bay halkana ninkeygu ku dul raali gelisay usluubtaana ninkeyga ay ku qancisay leedahay iska sabir inagana maanta haweenkeenu haddii uu iska daa hadduu dhintabe bugtaayar haddii ilmaha lagu sheego ayay balaayo u yeedhan oo dhulka isla dhici oo cid walba u sheegi oo cid walba ku cabani oo cid walba ku ashkatooni haddaad aragtid bay yidhahdeen culummadu qof ay masiiba la soo daristay oo masiibada la soo daristay dadka kale u sheegaya haddii la arko waxay ka dhigan tahay ilaahay buu kaga ashkatoonayaa makhluuqiisii ilaahay ma cid baa kaa qaban karta may
balaayada lama sheegay waa la sabra waa la adkaystaa barwaaqada laga sheekeeyaa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ni'mada laga sheekeeyaa mooyaane balaayadii masiibada lama sheego Sulaym radiyallahu anha waagi markuu bariyay ninkayga maskiidku tagay Abu Talha markaa buu nabiga u sheegay ilmahayga u sadiiro u shafaacay maydkiina aqalku dhex yaala Sulaymna way iga qariso xalay saqdi dhaxay ii sheegtay markaa buu nabigu dhowla cadeeyo wuxuu yiri a'arrastum laylata ya Abu Talha xalay aroos ma haydo islaanta ma seexatay ha markaana iyadiina aan barakeeyay kadib ii sheegtay buu yiri markaa buu nabigu saragiina xalay Allah inii barakeeyay buu kay ducadii nabiga ilaahay u aqbalay wiil bay dhashay wiil ayay dhashay wiilkii waxa la arkay 9 wiil oo culimo isaguna dhalay baa la yiri laana ducadii nabiga habeenka dhacda ilaahay u aqbalay marka ma haday geeri nala soo daristo argagixi mayno murugooni mayno waa sabrayna ilaahay baan baryaynaa hadal wanaagsan baa ku hadlaynaa haduu wax ka dhinto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun اللهم أجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها وإن الدعاء كد عيسنا إن لله ما أخذ وله ما أعطى هذا الوناكسن وإنه إلمها كان مغلو هو يدو هذا الزوج شيء الله هذا السنة هذا الوناكسن كل هذا إلمها هذا تربية ديني سنة هذا الوناكسن كل هذا حتى إلمها هذا هذا الشيء هذا أردت أخلاق حما هذا أردت وكعلي سيو عرب كاغا هذا الكحوكا إلى لأقول هبار المهاجة سوالدنا هبارك أفضل أو قال لقب بلايك وقل بعضي بابر كلتك ورابك عن مصيبة الله أوكر مر بي سماد فرطو لقو أقبلي نين أضيع بريكو زيارني أقل إنك يسيو وعلم باك حنوصا وأفرت الدين بكحرية مركاسا ندعينو كنحني مركاسا يقول إنك ما ذرك يسان قول ها أنا يقعد عديبني idhibay markaasaan deewaan hadal baa iga soo dhacay ilaahay masiibo kugu rid waata masiibada way ku dhacday dibtiisiina kuma ekaan isage anigana waaniga maanta dul jaga ku dhibaataysan ii duceeyay hadal wanaagsan baa ubadka lagu hadlaa xataa haday caroodaan dadkan walaalaheeda carbeed ee akhlaaqdooda marka horeba ay wanaagsaneed diinta islaamku ay ugu beertay ayaad arkaysaa marka ilmuhu ka cadhaysay waalidkiisa ما هبارتمان ما يرادان بلايك وقاده وحي يرادان الله كون حريست الله يهديك يا ولدي الله يرحمك الله يسترك الله كو استر erayada carabtu waxay isticmaalaan markay ilmuhu ka cadhaysiin halka inaguna aan isticmaalayno waraaba ku qaaday hadal wanaagsan ku hadal malaa'iktu waxa leedahiin bay aamin leeyihiin إسلام بان مالين أركي إنه يريد الشكول أبها وحاكو سمع لا إله إلا الله مرقاس أقول أبهد وأيو سودك أقما هذا الكائلمها أتكول هذا هاي بريتو ولا يساقون هذا كلام بكورا لابد والد الله عاين أبو النبي يقول وكبائر صحابي حديث كاورين يقول نبا النبي كويري والنبي الله لابد والد سيد الله عاي كرا ما دعي كرتا لابد والدين العايو هابو النبي يقول عليه الصلاة والسلام كان كلو أبي ويدي أفلقادين كان كلو أبي ويدي أفلقادين سلاسو أبي ويدي أفلقادين برسول الله وكبائر وذنوبته ووين بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام بركة إلهي جل وعلا هنص ونقلنا وإلهي حكى عبسنا وعرب كينا وحكوا هلنا ولا إلى لنا يا وجارك حق بجارك كلين إسك إلالي جارك الله بحق بقولي هي حقك وبعد وحويان أن تحسن إليه بالليل وإن الإحسان هذا سميسا هذا الإحسان كري وإذن هذا سميسو دبت أديك إلهيك وأبوري أمدك حيسو ملك لفريسو حق الجار دفت هذا هدو جارك أقول هلا يو وتوفي عن إحسان السماء هدو أحكو أماهي هدو أحكو يديستو سي هدو قرقار كعدل بقو قرقار هدو مصيبة الله سودر يزدو تعزيده هدو دين كوي ديستو ديمين كريش الديمي هدو خير كوي يدا عجيب هدو قرمت كعدل بيا معاونة وكالمه وحقه وكقوله يا جار كاغو انت هدي لغاوا يوم منا هتسين ويدو بل وهاغا اديغا شركه iyo dhibaatada kugu abuuran umada meel kala fadhiiso ka nabad gasho oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam khaasatan haweenka
وكي نبي يقول لها جنة قالي ذاتك جنة قالي فقراء أيا أقول بدنا نارتنا وان قالي بالنبي يقول ذاتك نارتا قالي الدمر كأقول بدنا برسولكم عجيب جنة دي بان يجيب النبي يقولون طالع عدي ساسانو يا جنة دي ذاتك جنة قالي فقراء أيا أقول بدنا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتنا وان يجيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاتك نارتا قالنا وحا أقول بدنا بالنبي يقول هوينك أقول بدنا صحابياتك النبي وي ويديون وحي كويرادين ويا رسول الله ما حيكون عدينا هوينكم نارتا أقول بطان ولا بشيء النبي يقول شيء حق الرجوع أي كله هنا وايد دبولان ونيجي صدق كسنة أفرت كسنة إحسان سميني التعب كيسيو دنيا دقالي سي أيدي المهجة كبحري هل مالن هذا إسقطان وحي أورنيسا خير نكاس الله يهنو بارك بيجك حي عيدا نوي بدياب النبي يقول عيد حنت عربك إلى ليا الصحابة كمدا النبي يقول يمدو كيري قبل هبلاية اللي ينابع الدرس كيغا والصلاة بدن تهي والصوم بدن تهي لكن جار كيغا عرب كيكون بتاعي كور النبي الله تاس النار بيكون جرتاب رسولكم كوكا لا يريد هذا نانيغا هبلاية الدرس كيغا ما صلاة بدنو شنطة وقت بيكتو كتا صوم كيغا نما بدنو بشهر رمضان بيصونتا لكن جار كيغا والنبت جلسة كور النبي الله تاس الجنة يكون جرتاب رسولكم اسباب الجنة اللي قال وحا كمدا صلاة شنطة وقت هذا إلى لسد بشهر رمضان آت صوتد جار كاغانا ماركتان دباتدا آت كإلى ستد إلهي جل وعلا جنة نولي بريينك وحديث واكي النبي يقول لها هوين يدو شنطة هذا وقت هذا إلى لسو صون كان بشهر رمضان أي كصونتو فرج كيدنا أي دور صوتو نين كيدنا أي أضيعدو سيديد الباب الجنة أي لاذا هاي كي كسو حقا اكتبا إني كقشا بحقه يلتيب رسولكم إلهي هنصر نظنه وإلهي جل وعلا هنكبغنه ودينتنا ما ركتاني هنكو عمل فلو وحقوق بني آدم كهنسكا إلى لنه وحق بين رجل نقول يهينه أيك حقه ذنا إنكم حقه إسكا إلى ليا ربنا إن شاء الله تعالى والله قالها الله إن حقنا أي إلى ليان والنبي عليه الصلاة والسلام دردارن كيس مركو دمنا أي صلاة دومضة وكلا دردارمي هي حقوق ذا إنكم الذين النبي قمضة وكلا دردارمي استوصوا بالنساء خيرا بنبي وراوينكينا خير كو قاعد ابو نبي يقول وني ولو بنيكا كله markaad ka tagaysid khayr kula dardaar mareerihiina khayr war xaaskaaga ilaali war gabdhihiina ilaaliya war hooyooyinkeenu khidmeeya limaada asiraad wayaano aqalada ayaad noogu dhex xidhantihiin oo ilaahay baa jalla wa ala noo qadaray inaad aqalka intood noo fadhiisataan ilmahana aad noo dhashaan ilmahana aad noo korisaan annagana aad nagu dhex raali gelisaan maadaama ay culayska intaa leg shariicadu ay nisaartay xaqiina nabi maxamed meel weyn buu gaarsiiyey oo maalin maalmaha kamida nabiga loo sheego la yiri reer Madiina haweenka way dilaan markaa buu nabigu wajigiisa intuu badilay mambarka ayuu fuulo wuxuu yiri waxa igu maqala in ragga qaarkood haweenkooga ay dilaan ee gacmaha ula tagaan ragga haweenkooga dilaya laynaya raggiina igu khayr badnaa ma aha rasuulku raggiina igu khayr badnaa ma aha xuquuqdiina shariicada islaamku aad buu ilaalisay inaguna is ilaaliya oo madrasad baad noo tihiin dugsi baad noo tihiin hoygii aan ku hoyanaynay ee quruxdayadu aan ku qurux badnayn waa inaguna insha Allah ta'ala sabra oo ilaahay adeeca oo gurihiina ku akaada oo quraanka iyo cilmiga diinta barashadeeda ku dadaala oo awlaadiina diin ku barbaariya oo ogaada jiilalka soo socda haday noo hagaagaana waxay ka dhigan tahay ninka noo hagaagsana haday jiilalka soo socda inaga xumaadaana waxay ka dhigan tahay haweenkii zamankan joognay baa naga xumaa bay ka dhigan tahay insha Allah dhahada inaad hagaagsanataan Allah ina barakeeyo Allah ina dhowro Allah ina dambi dhaaf khayrul kalaami ma qalla wa dalla bu nabigu hadal waxa ugu khayr badan hadalka yar ee kooban laakiin murtida laga raaco marka waa hadalku zamankan uu badan yahay laakiin amal falka diinta ayaa yar zamankii saxaabada hadalku uu yaraa laakiin amal falka ayaa badnaaye waxa aan maqalayn culimada ka maqalay ama culimadu ayna bareena kuwa ku dhaqme ku amal fal Allah inaga yeelo dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad